ازداد جمالا جوهر. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada janalkiini waa gabadhiini Fahmi Farida Beauty. waxaan igu soo dhaweynayaa gacmo furan iyo qalbi furan iyo niyad furan, masha Allah tabaaraka Allah. haddii aad janalkayga ku cusub tahay fadlan soo dhawaaw. magacaygu waa Fahmi Farida Beauty. waxaan igu soo dhaweynayaa gacmo furan. fadlan subscribe, like and share. eedada u dir, awoowaha u dir, adeerka u dir, walaasha u dir, masha Allah. waxaana iga faa'iidi doontiin insha Allah tacaala waxyaabo aad u badan sida dalxiiska, make-upka, isqurxinta, guri hagaajinta iyo dabcan waxyaabo badan inta lagu soo koobi karin, masha Allah. waxaan leeyahay mar kaleeta iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad boo kusoo dhawaada. maanta waxyaabo simple ani wada insha Allah tacaala oo in badan aanan aqoonin ay iga faa'iidi doontiin. ani waxaan deganahay magaalo aad u roob badan. intaan aqoonin waxaa la dhahaa magaalada Bergen, waa caasimada labaad ee wadanka Norway. waxa waa magaalo aad u roob badan, qoraxda iyo iftiinkana aad ugu yartahay dabcan, masha Allah. so roobkeeda badan 7 buro waaweyn ku heeraarsan. so roobkeeda aad u badan marka xiliyada qoraxda ay soo baxdo maanta oo kaleeto dadka aad u farxad gelisaa oo magaalada dhan degan. dabcan aad u farxad gelisaa magaalada. waxay noqonaysaa cariiri, baawurada cariiri ay noqonayaan, dadka dhan banaankii wada joogaan. so marka farxadda way aad u wanaagsan tahay, masha Allah. farxaddaas dabcan waxaa ka warheli karo amba yacni xiliyada iftiinka imaado amba labiska aad u wanaagsan yahay ee qoraxda aad u kulushahay oo roob kaa joogsado. waxaa dareemi karo qof wadan ku nool amba magaalo aad u roob badan sida anigoo kaleeto masha Allah. marka maanta waxaan i tusaya waxyaabo simple insha Allah tacaala xiliyadan oo kaleeto ee farxadda magaalo roob badan roob ka joogsado oo qorax badan ay imaato waxyaabaha aan sameeyo oo simple ah insha Allah tacaala ani inta jecelahay aan wada sameeyno. so masha Allah sida u jeedin grill maanta sameysanayna aan cunto dubanayna, rooti isticmaalayna sida u jeedin, fisk kake, malay oo laga dhiga hamburger oo kaleeto iyo bolsa iyo hamburger caadiga. waa kasaa banaankeena aad u qurux badan yahay sida u jeedin, waana very simple aad u qurux badan. magaaladan doogeeda badan because roobkeeda badan, cuskeeda aad u badan. sida u jeedin grillkan isticmaalayna man isticmaali kartiin insha Allah xilli ilaa uu ka dago qiiqa tirada badan iyo holaca, masha Allah. waana kana ilaahay ha xafido walaalay ilmaheeda, masha Allah. sida u jeedin isticmaali kartiin ilaa holacaas uu ka dhamaado. way ku qoran tahay baakeedka holaca iyo qiiqa badan markuu ka damo sidaan oo kaleeto aan tusaayo kale markuu noqdo isticmaali kartiin insha Allah tacaala. hadda waxaan saarayaa boolsiya ku bilaabaya kolay sausage lahaa English ahaan, laakiin af Soomaali ma aqaan wax lagu dhaho, anaka boolsan dhahnaa. waa lagu safaaya ilmaha aad u jecel marka ilaa waxaan dubayaa 10 daqiiqo. haddii aad jeceshahay boolsa inaad ku cuntid ceyriin dabcan 3 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo duban kartaa, laakiin waxaan rabaa inuu aad يعني مورك برون oo noqdo oo aad u dubto oo yani markii la cunayo dhadhankiisa aad dareemaysid inaad cunto grill amba cunto la dubay aad cunaysid sidoo kale ma fahanteen. marka kulli sida u jeedin ku safaaya bahalkan wuxuu ku fiican yahay isticmaalaysa oo tuuraysa kaliya wax dhibaato amba wax yani uu keenay malaha. so waa loogu talagalay just waxa way bahalka lagu shido amba hadaa haysatid taraq aad ku shidaysaa خلاص. waa kasaa hamburgerkii, fiskakii, malay waa fiskaka sida hamburgerka kale loo sameeyay. so aad u jecelnahay masha Allah. xiliyadan oo kale waxay ku suurta galinaysaa intii aad guri fadhi lahayd ama telefoon ku hadli lahayd in yani waqti aad la qaadatid asxaabtaada oo aad soo wareegtid just banaanka ka wada gadan kartiin fiskakahaaga iyo bolsahaaga. dukaamo carab oo gadana jiro xalaal ah. so iyo hamburgerka kulli waa sii gadanaysiin. ka bacdina xiliyadan oo kale waxaa la fariistaa meel oo aad u qurux badan just bahalkana shidanaysiin, cuntadaada grilleysanaysiin, just waa cunaysiin masha Allah tabaaraka Allah.
waqti fiicanna way noqonaysaa marka cuntada markii la isla wada cunayo dadka isku keenta habiye dadka ka dhigtaa dabcan sidaa wada ognahay soo intaa guri ku jiri lahayd oo caajis lahayd waxaa kaaga qurux badan just inaa banaanka u baxdid oo labisatid oo saan oo kale samaysid ambo yacni maasha allah guryahaaga meesha kuu qaaska uu guryahaaga leeyahay saan oo kaleeta ugu dubatid cuntada oo birfaadkaaga ku just happy yaa noqonaysaa dadka kula joogana happy noqonayaan waa fahanteena umaleynaya wax aad u wanaagsan waaye dabcan ani ahaanteyda aada u farxaa maasha allah sida ujeediin waxaan ka dhigayaa waa dubaya si fiican u dubaya adii haddaa jecleen madmadowgaas inuu yeeshto iska daa guduud ka sameyso ani laakiin madmadowgaas aa jeclay inaan ka sameeyo because waxaa rabaa inuu aada u bislaado gudaha oo aan dareemo inaan wax cunaya sida ujeediin wuu bislaanaya maasha allah waa ka bixbixinaya markaa si fiican ugu bixbixiyana horey waxaa ugu duubay almunium hadda wuxuu ka dhigayaa waxyarii suuro gelinaya kabacdina markii rooti la saaro waxyar wuu jilcanaanaya aaduna u macaanaanaya caraf saa-ida oo aada iyo aada iyo aada u fiican waa ilaysiin dabcan markaa gariilka sameyneysiin so marka ani waxaa aada u jeclahay inaan waqtiga la qaato dadka a jeclahay way fiican tahay in yani waqti laisla qaato maasha allah so haddii aa habaryar tahay anigoo kaleeto amba hooyo aa tahay amba aaba aa tahay ilmahaaga just griilkaas u samee meel isla wada fariista cuntada isla wada cunaa just sheekeysta qosla waqti fiican isla qaato wax ka wanaagsan maa jiro intaas waa maya tibsi ugu wanaagsan oo maanta naysiinaya waa intaas in ilmaha waqti lala qaato haddii aa waalid u tahay haddii aa hooyo tahayna ani waxaan kusoo kora guri lees wada jecelyahay maasha allah tabaaraka allah eeda adeer abtiyaal kulli lees wada jecelyahay oo jireec iyo jareer iyo diris iyo qaraabo iyo dadaa waxba laysku ahayn wax laga wada cunayo maasha allah aadaan ugu faraxsanahay maasha allah wayna iska fiican tahay in yacni asxaabtaada iyo dadkaaga iyo eheladaada iyo dadkaa jecesho dhan waqti la qaadatay cuntada yacni griilka samaysatiin xiliyadan oo kaleeto meelaha qaarkood ee wadanka Norway looma ongolo dadka inay grill ka sameystaan sida Trondheim oo kaleeto waa caasimada saddexaad aad u adag tahay in yani la grillesto waa la diidaa sababtoo waa tour amba waa qaleel soo magaaladeena laakiin waa magaalo roof sida u jeedin rootiga bolsaha iyo rootigii hamburgerka sida u jeedin Fanta iyo waxa Coca-Cola ilmaha waxay farxad gelinayaan ketchup shaaxeeni aan soo diyaarsanay qaxwadeeni anakana maasha allah iyo ablius cabitaanka laga sameeyay tufaaxa sida ujeedin maasha allah waxaa shubaya hadeer faantadii caruurta so marka ani ahaanteed waxaan igul talinayaa insha allah inaa waqti isla qaadatiin caruurta waalidka u tahay يعني ما شاء الله تبارك الله وقت في عن لسه لو ضقاته لسه فرحت قليو لسه القصلو لسه شكستو أصحاب أدي أتقاند المهيسة كلا أطاقة وقت اللقاطة وحد ونك سماي مركزو كلا تونا وحيك ونقنيسا أكتف تايد وأد ونكسن إنا دنقريها كعاجسين ما شاء الله marka waa ka Soomaali weyn waxa rajeynaya wax badan inay ka faa'iideen insha Allah taala oo yani asmeyn doontiin sida ay sameeyay waxaad wanaagsan insha Allah ruwayda ku soo dhaweynaya channelkay ruwayda run gabaraha bareer oo jecelahay waaye like share garay subscribe gambalelka taabo comment garay you can see my Javier and my sister goodbye and have a nice day Aye come here Okay. 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 Yeah. أحمد صابر إيه محمد مينكي كمان مرنا طبعا المهاد وجعلها يا وايلها حفظه سيدا وجدين بهالك صدان وكالتو كوكو بلابنا يا ومركا عن شدي مركا Soomaali weyn waxa rajeynaya insha Allah inaa wax badan iga faa'iideen waxaan rajeynaya horumar wanaagsan aan ka talino horumarkeena aan ka talino wanaageena aan ka talino farxadeena marka insha Allah waxaan rajeynayaa sida horani uu soo sheegay farxad iyo horumar wanaagsan iyo qeyr iyo bashbash insha Allah taala aadan jeclahay hadii aad channelkayga ku cusubtaa sida horani uu soo sheegay fadlan subscribe dheh gambaleelka taabo share dheh comment ka bixi si aad wax kasta aan soo geliyo ula socotiin insha Allah taala waxaan rajeynayaa in yani
eheladiina iyo qaraabadiina waqti fiican la qaadan doontiin oo isjeclaan doontiin oo isxariiri doontiin ehelka waa wax ugu wanaagsan oo waqti lala qaato iyo asxaabta maasha Allah tabaarakallah saaxiibtinimadana aad iyo aad u wanaagsan tahay in waqti la isla qaato waxaan ugu wanaagsan boo labada saaxiib oo jannada ilaahay uu gelinayo waa kuwa daacadnimada ilaahay ku saaxiibo oo waxay harsan doonaan carshiga ilaahay maalinta yawmul qiyaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala saaxiibadaas wanaagsan hanoo sameeyo waxaan nii rajeynaa insha Allah horumar wanaagsan iyo ka talinta wanaaga iyo dadka isku dirka in laga daayo insha Allah horumar wanaagsan Soomaali weyn peace and love assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye ciao